weliga gadaalha marin ilaahna kula garab gal xilkaadu gayfan tahay wargaraadu rag isku dhaafaya garabka suro xafladii baahinta ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi oo doraato lagu doortay degmada Boocame ayaynu baahintiisii maanta isugu nimi waynuna furanaynaa xafladeena waxaa inoo furaya oo ka sheekaynaya sida qabanqaabada doorashada habdhaqanka ee aynu isticmaalay gudoomiyihii guddiga doorashooyinka ana qabanqaabiyaha xafladan gudoomiyaha ka ahaa cabdirasaaq xasan gacme kusoo dhow waxgaradka boqaasha aqoon-yahanka warbajoogka dhalinyarada haweenka saxaafadda ciidamada amniga sugaya dhammaan waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamka bacdi waxaynu halka isugu nimi baahinta ama shaacinta ugaaska cusub ee beesha haaruun xasan ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi beesha haaruun xasan ama xasan ugaas markay garowsatay in ay noqon karin hoggaan la-aan maadaama hoggaankoodii hore allah u naxariistay u geeriyooday waxaa lagama maarmaan noqotay in la sameeyo isinkan waxaa loo saaray samayntiisa ama xulitaankiisa guddi ka kooban 60 guddigaas waxay raaceen habdhaqanka u yaalla beesha daalood oo ah haddii boqortooyo ay meesha ka baxdo in dhaxalkeeda ay leedahay caa'iladiisa sidaa daraaddeed waxaanu ku kulannay istifaarahan soo socda kow maxamuud waa nin ugaas maxamuud waa nin da'yar markii aabbihi uu xilligaa leekaa allah u naxariistee wuxuu Soomaaliya u hayay xil aad u weyn wuxuuna sumcad ugu lahaa sida uu hadda sumcad ugu lahaa allah u naxariistay xilka hayay qodobka labaad maxamuud walaha dhaqanka ee Soomaaliyeed wuxuu ku leeyahay abaal uu u dhigay aabihii ayna waajib tahay in walba inuu isu gartaago qodobka saddexaad haddii hogaamiye la jecel yahay ummadda uu anfaco oo uu qiimo weyn yeesho sidii ugaas cabdilaahi wuxuu leeyahay la taliyayaal daacada oo talaqabeena maxamuud waxaa garab taagan kuwii la talin jiray ugaas cabdilaahi ee daacadda u ahaa ee sumcadda u soo jiiday sidaa daraaddeed markaanu qodobadaa eegnay maalintay ahayd bisha 11 oo ay yoomka carafo ee maalmaha ilaahay maalmaha ugu barakada badan ka mid ah ayaa waxaanu doorannay ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi ciise annagoo ilaahay ka rajaynayna maadaama yoomka carafo ay tahay kulanka keliya ee caalamul islaam uu isugu yimaado buurta carafo ilaahay waxaanu ka baryaynaa ugaas maxamuud inuu noqdo midka kulmiya isimada Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed sidaa daraaddeed waxaanu u sheegaynaa bahda dhaqanka Soomaaliyeed bahda dhaqanka daalood ee dhaqanka Nurbahaante inaanu soo buuxinay booskii ugaas cabdilaahi ciise aanu u garanay oo u doorannay si kalsooni leh oo aan kala har lahayn ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi ciise waxaan mahadnaq u soo jeedinayaa
ugaas ama reer ciise nuur oo si kalsooni leh oo aan muran lahayn isugu raacay ama noola qaatay doorashada aanu doorannay ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi taasoo waxay ka turjumaysaa inuu reerku yahay reer dhaqan yaqaana iyadoo ay jiraan kuwo ka waaweyn kuwo ay kala bah yihiin intaba aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waanu ugu hambalyeynaa haddaanu nahay beesha xasan waay ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi ciise nuur ayuu ninkaasina ahaa masar cabdisaaq haddana waxaan kusoo dhaweynayaa odayaasha beelaha si iyaguna kelmadooda u yidhaahdaan haddana waxaan kusoo dhaweynayaa odayaasha beelaha oo iyaguna kelmadooda ka yidhaahda meesha ayaan kusoo dhaweynaya waxaan kusoo dhaweynayaa ninka la yidhaahdo cabdisalaam yaasiin maxamuud haw salaanka bacdi waxaan maanta u hambalyeynaynaa oo aanu halka isugu nimi bishu ay tahay 13 bishii 9aad 2016 ugaaskii aanu isku raacnay haddaanu nahay odayaasha iyo guddidii haaruun xasan bishu markay ahayd 2016 maalintii carafa inaanu baahinay oo aanu shaacinay inaanu u dooranay ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi ciise nuur inaanu dooranay ayaanu baahinaynaa maanta ay bishu tahay 13 waxaan leenahay hambaliyo cid kasta oo na dhegaysanaysa ama dibad iyo dal ama na daawanaysa oo warbaahinta kala socota waxaanu u sheegaynaa haddaanu nahay beesha haaruun xasan ee degmada boocame inaanu u doorannay oo aanu xurannay ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi ciise nuur inuu yahay hogaamiyaha dhabta ah oo dhaqanka beesha haaruun xasan asalaamu calaykum dadka isu yimid oo islaamka ah oo dumar iyo rag isugu jira oo odayaal leh oo dhallinyaro leh oo caaqila leh oo ningarmood leh intaa waa salaamaya salaanta islaamka ku salaamaya waxaanu doorannay ugaas maxamuud cabdulaahi baanu doorannay raalli baanu ka nahay waxaa doortay xasan ugaas baa doortay si fiican baa naloo ku soo gudbiyo warkiisa waa ku faraxnay oo waa ku qaadanay saasaanu ku doorannay ilaahay kii jira ha nooga dhigo ilaahay saasaanu ka barin waxaana la yidhi nimaan wax wanaagsan alla ka qaadin awal baan alla siin wixii baxayna allah u naxariis naxariistan iyo naxariis aakhiraanu ilaahay uga barin allahu akbar الحمد لله رب العالمين وحال مهدوع لليا فقرك إلهي وإلى أبوتي نايد ميدو سهلي السوق يكالي محفل كالشرف كله ولا قباه ليو لقونا دورتي وقاس محمود وقاس عبد الله عيسى النور انتي صوما مشي انت كغيب شيء وايوه الرئيسو صحافة إرادة من ماشي اي جوتي وربجوكتا تراك دار صومرتي واللي انت يوتي من محفل كاينة كغيب قلال باشا هارون الحسن iyo wixii la jiro oo darsiyadeena oo ama maqlaya ama ka soo qayb galay inta waxa ku salaamaya salaata islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaahay waxa ka bariyaya inta ka shaqaysay sheekhi ugu horeeyay wacdiga oo aayaadka quraanka
يا حديث النبي إن أقول حسوسيي وصير هيدلو الشيء إن أنا إن مسنهي وقهريه وحوي وحانو دورني وأقبلني وإلهي كبر إلى شغدي به قبنجري يمدك بدن بئرو قبطه وقاس عبد الله وقاس محمود وقاس عبد الله عيسى ولا ليال مروايك مدرياشة النرقلة بيع مشتركة انت انا هو هاي غرني باكر غرني هارون الحسن لا هو انت اصلا ومجتمعة واسكتوا waxaan leeyahay ilaahay hadii ka abaal bariyo koob iyo 60 وهي الله تجي مالتي هديه بين ما هي laga soo baxay aasti marxuumkii ugaas Cabdullaahi Ciisanu intii ka dambeysay ku shuqlada wadarahoodii oo dhan u sheegay iyo inta laga maqan waa inagu raacsan intaba waxaan ugu hambalyeelaya wixii laga maqan وإننا إلهي وحق بريا قلبي قود وصدق إنه إلهي صدمه إن شاء الله بإذن الله كريم وحان هذا الشيء كجنب حياة ضد ولما وباهنا وشورو خيانة ويا عصب عدادا إلهي وحق بريا الله ينقام البريا الله ينواقبر وهرين من الدين هيا سلام يا وعد يروتشي وهرين وعن سلام يا اسمه وحي كتشوله هيا سلام يا وعن سلامية وغاشا وحي كتشوغا وعن سلامية وضياشا مرتدى أيان سلامية وعن سلامية لقربوتك أرشو أولكم يا قرون أيان سلامية وعن سلامية ضمان أولينك كالانشاتشاتك والنور والبمره أيان سلامية هذا السلام وحان يدين شيئية إلى إلهي قرتي إنا ندورنه أنا ندورني وقاس محمود وقاس عبد الله عيسى النور الواحد يمر بالتحويل غيره وحن قرن سنة وقاس عبد الله وهم المفردين وعن دور وحن آب غير اسمه وروتية إلهي ذكرت شيئية محمود لا يرغي به من يشاء وعن مغشيرية كون مد الصومالية دمانتين وعن مغشيرية بورده دارو هو هرتي هو بالبانتي إلي أحادان كي يسكرب تاقي لها محمود وقاس عبد الله وماسك كسو فيري وكان كدقن كسوماليات وكان كدقن كدارود وكان كدقن كهرتي وكان كدقن كدولبهانتي ما أنتو كسو فيري وحو دحلي بوسكي آبيه waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa maamulada waxaan u sheegaynaa dadka islaamka ah inuu ninkaas yahay ugaaskii xasan ugaas ee rasmiga ahaa saasaa ummadda Soomaaliyeed haddana waxaan ku soo dhaweynayaa ninka la yiraahdo maxamed jaamac dhagax السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa xafladana qiimaha iyo qaayaha leh ee lagu maamuusayo oo lagu doortay ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi oo beesha haalo xasan u ahaa jiray markii hore ugaas oo maanta ka dhacay jagadii aabihiis baan ummadda ku soo dhaweysay xafladda qiimaha iyo qaayaha oo maanta ku maamuusaysa baan salaamayaa 4 boqolka ayaan ku salaamaya سلام كبعد إلهي وحنا نقول شيئا وعلى لحنكي هراء الرواس عبد الله عيسى نور هو الدورتين وان كان لها ما كان وحنا كتشرا رواس محمود رواس عبد الله هو الدورتين وعلى إلهي كان شيئا
عبد الله عيسى نور أو قيمها يقالها قلها إن هاي لغاس محمود لغاس عبد الله يقول نقضه وقاميها هارون حسن الكسر هارون وعلى هذا كذا حيا همبليو شيء ومدة أنفعه هارون حسن أنفعه ودارون أنفعه وشيء عبد الله عيسى كل شيء وقاسية عالمته إنه كمية والإلهي كل شيءنا هذا الكلام تاسك كذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو دوينا يا أحمد علمي. waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha xafladan sharafta leh oo lagu aqaanayo lagu maamuusayo lagu doortay maxamuud ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi ciise nuur ka soo qayb galay dhammaan mudane iyo maruulo ayaan salaamaya waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka waxaan salaam u gudbinayaa dhammaan inta baqashay xafladda ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi ciise nuur meel ay joogtada waa salaamaynaa waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka waxaana ka codsanaynaa cid kasta oo maqasha boqorkaa cusub sida haaruun xasan beesha haaruun xasan iyo ummadda dersiyadeeda ah oo la nool ay u doorteen oo loogu doortay masiirkii ummadda haaruun xasan ama xasan ugaas waxaan ku salaamaynaa in cid kasta oo maqashay ay isu taagto oo nala gadaadiso oo sida aanu ugu dooranay ay noola aqbasho noola qaabisho noolala qaata waxaan salaamayaa dhammaan adduunka islaamka oo dhan caalam alislaam waxaan ku salaamaynaa gaarsiinta boqor maxamuud ugaas cabdilaahi ciise nuur markaa intaa ka gudbo waxaa weeye ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi ciise waa ugaas soo jireena waa jaranjaradii labaad waxaa ahaa aabbihiisa ugaas ahaa beesha haaruun xasan hadday isu timi oo la doortay oo la gartay in boqor la sameeyo maadaama ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo boqorkii hore meesha ka baxay waxaa la isla gartay ciddii xaq u lahayd in la siiyo waxaa la xushay ciddii xaq u lahayd waxaa loo doortay ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi ciise nuur waxaa farxad ah oo guul weyn ah kalsoonida iyo midnimada iyo dhammaanshaha beesha haaruun xasan ay ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi ciise kula soo baxday waxaa farxad weyn ah ugaaskaas oo ah ugaas loo dhan yahay beesha haaruun xasan u dhan tahay waxaanu gaarsiinaynaa dhammaan isimada caalam alislaam waxaan gaarsiinaynaa dhammaan isimada soomaaliya waxaan gaarsiinaynaa dhammaan isimada daaro ismaaciil waxaan gaarsiinaynaa dhammaan isimada beelahaati waxaan ka codsanaynaa ugaaskaa cusub ugaas aabihiina ugaas cabdilaahi ciise ahaa isimada soomaaliya markay isu yimaadeen ahaa kii ay u dhibteen saxiixa qalinkooda in ay isagana ugaaska wiilkiisa sida ay tahay noola gadaadiyaan waxaan qabnaa inuu ugaas cabdilaahi ciise ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi ciise inuu la mid yahay ama uu yahay shaksi u dhigma shaksiga aanu dooranay ugaaska aanu soo dooranay sidaa darteed baana waxaanu kalsooni kusiinaynaa cid kastaabay waxaan u gudbayaa innaga waxaynu nahay xafladdan inta fadhida iyo in kale oo soddon jibaar ka badan waxaynu doorannay ugaas maxamuud
ugaas cabdullaahi ciise waxaan haddana kusoo dhawaynayaa cabdillaahi cabdiraxmaan meesha ka wada hadashaba kii loo baahnaa ama la oran lahaa la yiri marka waxaa weeye hadal gabadii yiri ama dhawaneed fadhaad gabadii waa dhibtaada ay leedahay af soomaaligii waa la dhamaystay yeelkadeeda mar haddii la magacabi inaa waxaan tatalaya buuran waxaa u horeeya marka u horeysa ummadda meesha isugu timid xafladda isugu timid miyiga magaalo mid kastaba ha ka iskaadee soomaaliyeed qof weyna teetanka uu yahay ilaa caaqil ilaa caruur ilaa ugaas ilaa caruur rag iyo dumar murwaya moole dhaliiriyo waayeen waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ka gudbo salaanta meeshana waa xaflad waxaa lagu baahinayaa beesha haaruun xasan inay dooratay beesha xasan ugaas inay dooratay ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi ciise nuur oo u dooratay masiirkii uu ka tegay cabdullaahi ciise nuur uu hayay iyo sharaftidii u keenay ama soomaaliyaba u keenay ama dhulbahanto u keenay ama harti u keenay ama daarood u keenay ama soomaaliya u keenay oo meel walba laga aqoonsaday oo meel walba looga tacsiyeynayo waxaanu garanay ugaaskii waddadaa faray in wiilkiisii maro oo shaarkiisii gashado waanu u garanay waa ku dooranay maxamuud ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi kalsooni iyo ragi iyo aroomaanu ku dooranay waxaan ku gelaynaa isimada daaro harti dhulbahanta cabdullaahi ciise waa wada tabiindeen qaanhayuu idiin ahaa afhayeen buu idiin ahaa waxaan ku garanayaa inuu idiin ahaa kacsidiisii sidii aada ugu soo gudatay waxaan idinka codsanaynaa ninkii sidaa ahaa ugaaskii sidaa ahaa wiilkiisii ugaasaanu idiin keeno bakaarkii idiinku jiray inuu idiin galo waa ku soo dhawaysaan oo la shaqaysaan oo wax u qabataan baanu idinkana idinka codsanaynaa annaguna hawsha iyada ah xafladii ugu dambaysay baanu maanta wadnaa way isku raacsan tahay beesha xasan ugaas ninka maqani ma jiro raalli baanu ka dhahay idinkana waa idinku soo dhaweynaynaa haddaad teedisimada daarood ama kuwa harti ama kuwa dhulbahanto khayr dhammaantiina allaha ina siiyo arrinta aynu meesha isugu nimin ama maqabuulaha allaha inooga yeelo guul baan rajaynayaa markaan intaa ka gudbo dadweynaha isugu yimi golaha kan hoolka shirka oo lagu maamuusayo xafladan ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi teetal kasta ha lahaadee waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay naftayda waxaan ku qanciyey xafladdu sida ay u socoto naftayda waxaan ku qanciyey sida aan u doortay ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi naftayda waxaan ku qanciyey inaan guul inaan gaadhay baan naftayda ku qanciyey ilaahay ha ii aqbalo ilaahay ha noo aqbalo waxaan idiin sheegayaa kooramka ugaas cabdullaahi ugaas maxamuud kooramka boqorrada daarood ama kuwa harti ama kuwa dhulbahante inuu ku soo biiray oo buuxiyey baan halkan ka caddaynaya waa guul waxaan idiin sheegayaa soomaaliya waxaan u sheegayaa daarood waxaan u sheegayaa harti waxaan u sheegayaa dhulbahante waxaan u sheegayaa in arrintaa iyada ah oo ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi in la isu taago in arrinteeda la kufeemgareeyo in la isgarab taago in la gardaadiyo in kooramkii uu buuxiyey la barbaariyo in talada la siiyo baan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed ummadda daarood ummadda harti
ummadda dhulbahante siiqa isimada. waxaan salaamayaa ummadda meesha isugu timi nooc kasta ha ahaato. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka tiri kari maayo waa hebel iyo hebel ma odhan karo. ummadda jaad kasta ha ahaatee waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. waxaan kaloo salaam iyo mahadnaq u dirayaa ilaahay baa mahadnaq leh. waxaan salaam iyo mahadnaq u dirayaa ummaddii nagala soo qayb gashay oo Soomaaliyeed aaskii ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur nagala soo qayb gashay baan iyagana u dirayaa salaam iyo mahadnaq u dirayaa meel kastaba ha ka yimid kuwii Itoobiya ka yimid kuwii Kenya ka yimid kuwii ka yimid haddii Xamar ka yimid kuwii meel kastaba ka yimid waxaan ugu mahadnaqayaa in ilaahay khayr iyo barako inuu ilaahay siiyo yaan ilaahay uga bariya. intaa markaan ka gudbo annagu haddii hoggaanka yagii dhintay ilaa maalintii la aasay intii ka dambaysay hawl baanu ku jiray. waxaanu ku jiray ciddii wax dooran lahayd oo aanu xulaynay oo meel kasta ka keennay intay beeshu degan tahay aanu ka keennay. waxayna doorteen ugaas Maxamuud ugaas Cabdullaahi Ciise bay doorteen. xafladda tan hadda maanta loo fadhiyo meeshan keliya ka dhici mayso. waxay ka dhacaysaa Laascaanood, waxay ka dhacaysaa Buuhoodle. mid walba waa dhegaysan doontaa. ummaddii wuxuu ka geeriyooday xasan ugaas keliya kama geeriyoon ugaas Cabdullaahi. wuxuu ka geeriyooday ummadda islaamka. wuxuu kaloo ka geeriyooday Soomaaliya. wuxuu ka geeriyooday ummadda Daarood Ismaaciil. wuxuu kaloo ka geeriyooday ummadda Harti. wuxuu kaloo ka geeriyooday ummadda dhulbahante. ummaddii meel kasta waxay uga heelan tahay cidda hoggaankiisa qaban doonta yaay meel kasta uga heelan tahay. wuxuuna noqday ugaas Maxamuud ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur. salaamayaa waan salaanteeda aan ka bilaabayaa ugaaska cusub ugaas Maxamuud ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur oo sawirkiisu gadaasheeda ku dhegan yahay. waxaan salaamayaa ugaasha culimada odaygaboodka hooyooyinka bahda saxaafadda dhammaan dadka meesha xafladan ka soo qayb galay. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam hadalkaan u badin maayo. haddaanu nahay beesha xasan ugaas oo ugaaskoodii ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur allaha u naxariistay uu geeriyooday. waxaanu ugaas u dooranay ugaas Maxamuud ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur. waxaan leeyahay waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed, ummadda Daarood, ummadda Harti halkaan anigu hoos u dhaafi maayo. ummadda Harti inaanu kaalintii soo buuxinay oo ugaas Cabdullaahi ilaahay u naxariistay aanu kaalin ku bedelay wiilkiisii ugaas Maxamuud ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur. waxaan u sheegayaa isimada Daarood gaar ahaan kuwa Harti intii tiqiin ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur waxaanu kaalintii ku soo buuxinay wiilkiisii. waxaan ka codsanaynaa haddaad tihiin isimada Harti intii tiqiin ama dhammaantiin waa wada tiqiineen liajli abaalkiisii ugaas Cabdullaahi inaad gacanta halkaa aad gashataan wiilkiisa oo gardaadisaan oo idinka mid noqdo aad soo dhawaysaan la shaqaysaan maxaan ku idhahdaa aad korisaan. waa dhalinyaro ee aad korisaan baan idinka codsanayna. waxaan kaloo rabaa inaan u sheego beesha xasan ugaas oo soo xushay oo anigu aan ka mid ahaa 60kii doortay ugaas Maxamuud ugaas Cabdullaahi. waxaan rabaa inaan u sheego intayna halka fadhida ugaas Cabdullaahi doorashadiisi wax yar baa kaga jiray. dadkiina ugu tabcay inagoo aan isin lahayn inay ugaas iyo isin inoo sameeyaan badidoodii waa geeriyoodeen. isagiina waa geeriyooday. dheergarad baa loo baahan yahay. meel fog in wax laga eegaa loo baahan yahay. ummadda waxaan u sheegayaa waan ka codsanayaa ha la ilaaliyo magacaa laba dhacay ee ah ugaas Maxamuud ugaas Cabdullaahi.
qof waliba cimriguu leeyahay ma qabo anigu cimrigaygu ilaahay baa yaqaan suu igu simi doono ka saddexaad laakiin waxaan rabaa taariikh inay noqoto oo la sheego la yidhaaho maalinta ah axmed cismaan baa wuxuu yidhi ha la ilaaliyo wixii cimrigiisu gaadho waa inay magaca saddexaad la ilaaliyaan wasiirada aan la sii dayn aad iyo aad baa mahadsanti hadli doona booska aqoon-yahanada ama dadka waxbartay ee soomaaliyeed ee dhalinyarada ah booska aqoon-yahanada daafaarsusugu عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام حضر البدن أورن مايو وحفلة مناسبة باهين يسوع دوين وقاس كرسوب باشا حسن وقاس محمود وقاس عبد الله عيسى نور عدانو نهاي أقويا لذا باشا عدانو نهاي درك أقوان له beesha waxaanu la qaadanay dhaqanka guurtida waxgaradka odayaasha culummada beeshu xulashada ay xusheen ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi ciise nuur sida ay beeshu ugu guuxday ay u qaadatay ayaanu u qaadanay usoo dhaweynay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhaweynayaa booska ganacsatada afka ganacsatada puntland ninkii ku hadli lahaa ninkii la oran jiray cabdi cali waxaan salaamayaa shirka sharafta leh munaasabadda ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi waxaana ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan si khaasa u salaamayaa guddidii lixdanka ahayd haaruun xasan ugaas waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ee ku hadasha afka soomaaliga haddaanu nahay beesha xasan ugaas maanta waxaan isku raacnay ama afka ganacsatada anigoo ku hadlaya waxaanu isku raacnay baahinta ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed hambalyo waxaan kaloo mahad celinayaa xuqaasha iyo caaqilada xasan ugaas waxaan u mahad celinayaa ningarboodka xasan ugaas waxaan u mahad celinayaa haweenka sharafta leh ee hidiya dhaqanka leh ee dhaqankii soomaaliyeed muujiyey ee degmada boocame boqolkiiba boqol waan u mahad celinayaa waxaan si gaara ugu mahad celinayaa markii ugaaskeennii qaaliga ahaa uu dhintay ugaas cabdullaahi ciise nuur kusii samihii ugaaska oo ahaa salabaan ciise nuur boqolkiiba boqol waa mahadsanya waxaan ummadda soomaaliyeed ee baaqooda lagu soo yeerayay ee ahaa in ugaas cabdullaahi ciise nuur ma doorateen war waa dooranay waan isku raacnay xasan ugaas dhammaantii wuu isku raacay xasan ugaas waa jiddi waa isku raacda jiddiuba wada xasan ugaas oo dhan wax naga maqan haba yaraatee ma jirto inala jooga niman deegaanka u dhashay oo arrintaa uga yimi dibadaha niman deegaanka u dhashay oo arrintaa uga yimi oo rag badana laakiin ma wada gaari karo inay meesha ka wada hadlaan laba xubnood baan hadal ka siinayaa cabdillaahi ciise xamari kusoo dhow aniga oo ku hadlaya magaca gurba joogta xasan ugaas adduunka meel walba joogta waxaanu rabnaa halkan ka caddayno in aanu xasan ugaas la qaadanay la dooranay kalana shaqaynay inuu noqdo ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi ciise ugaaska xasan ugaas waxaa jooga qurbajoog badan saddexda qaaradood ee yurub north america africa intaba qurbajoog baa ka joogta waxaan doonayaa in aan u sheego qurbajoogtiina soo wakiilatay
ee nagu soo wakiishay in aanu dadkayaga hawshaa kala qayb galo in aanu waajibkii aadna siisaan aanu gudanay hawshii siday ahayd aanu uga qabanay aanuna go-aankii la soo gaadhnay dadkayaga in laysla qaatay ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi ciise nuur yaa kelmadooda siyaasiyiinta xildhibaan cabdirashiid diriye oo inagala jooga xildhibaanada Jubbaland oo arrintaa uga yimid Jubbaland ayaa kusoo dhaweynaya الله وبركاته دمان انت مدنية مروين بيسوتني حفلة شرفت بدر سلام كدب وحالي هاي حنبليو ومالي فرحانين ومالي شرف له حق إلهينا كسر فن حق تدوينها بوعنا ودقمنا بوعنا كسر فن باهنتي وقاس محمود وقاس عبد الله وقاس عيسى نور anigoo ku hadlaya afka dawladda Jubbaland waxaan leenahay oo ku hadlaya afka dadweynaha maamulka deegaanka dawladdaas waxaanu leenahay ugaas soo dhawow waa meeshii ugu horeysay oo ugaaska lagu martiqaado ugaaska waxaan ku martiqaaday dawladda Jubbaland iyo degmada Kismaayo هذا البدن مهرين ومال فرحات وحالي هاي وكذا بحيا وقاس welcome with happy face. حلبان سليمان حلبان هذا بوتلان حلبان كديجان كبوعة ولا كذا السلام عليكم سولوين أنا قاعد يا أفكار دولة بوتلان وقاس محمود وقاس عبد الله عيسى نور aad baan usoo dhaweynaa oo hambalyeynaa isagoo ka mid ah ismada Puntland meesha Cabdirashiid iyo ka leeyahay oo ku macsuulay anaga gurigiisa waayna oo soo dhaweynaa waa gurigiisa waayna tartan maamul goboleedka way galeen marka aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan haddana kusoo dhaweynayaa doorkii gabdhaha degmada Boocale doorkoodii حاول شاوع مري على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد السلام يا اخوان السلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمان رجل الضمرة والسلام عليكم. هذا القول ما هارين هذا سوى جبل انتي ولا خير ولا أنا بقول هلا يا أفكار هوينك يا أهل سلوها قبل كسول كنا هلا يا وسعادة هوينك قبلان متلية waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan mujtamaca meesha isugu yimi bacda salaan waxaan soo dhaweynaynaa oo si kal iyo laab haddaan haweenka soo dhaweynaynaa oo aad ugu faraxsanahay oo ugu hawshaysnay oo ordaynay magacaabista ugaaska cusub ee beeshaas ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi ciise waan salaamaynaa kaliya laabaan ugu soo dhaweynay kaliya laabaan ugu dabaaldegayna kaliya laabaan u soconaa haddaanu nahay haweenka Puntland oo dhan ama badamada Boocame laas carad baa laga yimi garan waa laga yimi hawd baa laga yimi meel kasta haddaanu haweenka waa isaga nimi waxaan u nimi ku dhawaaqida wanaagsan iyo sharafta ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi ciise ilaahayna waxaanu ka baryaynaa haddaanu nahay haweenka anaagooda ku hadlaya inuu ilaahay ka dhigo kii dalkiisa iyo dadkiisa hanan lahaa kii ummadda Soomaaliyeed ay ku dagi lahayd oo ku nasan lahayd oo meel kasta maanta sharaf ku yeelan lahaa meel kasta ummadda Soomaaliyeed kii sharaf ku yeelan lahaa ayaanu ilaahay uga baryaynaa inuu sida aabihiis dalkiisa iyo dadkiisa daacadnimo uga shaqeeyaan oo ku shaqeeyaan ilaahay ka baryaynaa aabihi nin la jecel yahay uu ahaa isaga waxaan ilaahay ka baryaynaa nin la jeclaado inuu noqdo oo ummadda Soomaaliyeed jeclaato waan ilaahay ka baryaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhaweynayaa oo afka dhalinyarada ku hadlaya cabdirasaaq hiiran anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada xasan ugaas amaad waxay waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed ama caalamka inaanu dooranay ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi ciise nuur Soomaalidu waxay ku mahadnaqaan
soomaalida waxay ku maamaadaa wiil baa dhashay wiil baa dhintay haddii ilaahay naga qaaday waas cabdulaahi waxaanu ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa inuu noo dhashay waas maxamuud waas cabdulaahi ciise nuur waxaan aad iyo aad u salaamayaa ummadda meesha isugu timid uguna horeeyo wiilka aynu dooranay ugaas maxamuud ugaas cabdulaahi ciise nuur iyo ummadda kale oo meesha isugu timid anigu intii yaraydoo aan ugu kalaami lahaa waxaan ugu odhanayaa bismillaahi raxmaan raxiim bismillaahi raxmaan hobala 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 hobaloy bisin waxaana bisinka iyo arifka iyo aayadaha qur-aan ilaahi weynaayo waadigan kuwa heshanaa waxaanu ducaynaynaa ayaan diyaaru nahay ogaaska la doortay umaadisay inuu anfaco ogaaska la hobala 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 hobaloy hobala 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 hobaloy maxamud gulayso weliga gadaal ha marin ilaahna kula garabgal xilkaadu gayfan tahay wargaraadu rag isku dhaafayo garabka suro hawaayin galiyo islaam ciidanku gurmada nasiib iyo garabba waad leedahay ku gudo war nasiib iyo garabba waad leedahay ku gudo hobaloy hobe hobala hobaloy hobala 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 hobaloy war hartoo dhan baa ku codeeyaan ciladii ku jirin hartoo dhan baa ku codeeyaan ciladii ku jirin cirshiga iyo dunida magacaagi laga casuun cirshiga iyo dunida magacaagi laga casuun waxaana ku almaday raggii aabbahayiqiin war waxaa ku almaday raggii aabbahayiqiin waxay cabbireen nin booskii casiisi kara waxayna cabbireen nin booskii casiisi kara ee caleema dogliyo markii uu cagaar ku baxo daaroodoo cimiri nabad kugu ana shuye daaroodoo cimir nabad kugu ana shuye hobala 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 hobaloy war hooyo maxamudow halyar baan kooranayaa war hooyo maxamudow halyar baan kooranayaa waa inaad miisaantid madasha laga dalbaday waa inaad miisaantid madasha laga dalbaday war maalkii iyo muruqi waa inaad macquulisaa war maalkii iyo muruqi waa inaad macquulisaa waa inaad meel dheer ka fahantaa waxaan ku marin waa inaad taladana la mirataa raggii murtile waa inaad taladana la mirataa raggii murtile war maalintii la doonayo lagama haro oo maalintii hoo la doonayo ugu horree hayal wanaagow sidii aabbahaana hano hayal wanaagow sidii hayal wanaagow sidii aabbahaana hano oo midaanuugaaski ku ilowna noo ahaw midaanuugaaski ku ilowna noo ahaw hobala 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 hobaloy war dadiyo dunyaba hiddaa laysku dabagalaa dadiyo dunyaba hiddaa laysku dabagalaa war halyaygii dhalay sidiisii u haybadlow halyaygii dhalay sidiisii u haybadlow war hoodadiyo sharafti ka hidayso aabbahaa war hoodadiyo sharaf war hoodadiyo khayrki ka hidayso aabbahaa hanaankiyo sharafti ka hidayso aabbahaa
wargeesinima lahuba ka hidayso aabbaha hadaran laysku hadina ka hidayso aabbaha sida toloo hagana ka hidayso aabbaha hayal wanaagow sidii aabbahana oo midaanugaaski ku ilowno فاطمة أحمد سيري خير الله سيو أبوانad weeye waa abwaanad haddana waxaan u guddayaa doorkii arrimaha bulshadu halkaa ayuu ku dhammaaday aqwaasha xasan ugaas ee goobta fadhida ayaa iyaguna kelmadooda odhanaya waxaan ku soo dhawaynayaa caaqil boos faqadan waxaan idin leeyahay reer mawaax intaa kadib anigoo ah caaqil maxamuud yuusuf boos waxaan u sheegayaa dhammaan soomaalida maamulada deegaanada aridaxiga isimada gaar ahaan dhaqamada isimada dhubaante anigoo ku hadlaya afkayga iyo afka beesha haaruun xasan inaanu si buuxda usoo buuxinay kaalintii ugaasnimada oo ay beeshu isku raacday tan iyo dibadda wada tashi badan inay doorato ugaas maxamuud cabdulaahi ciise nuur waxaan leeyahay dhammaan intii ka soo shaqaysay ee beesha ahayd ee sida kalsamida iyo habsamida usoo dooratay iyo dhammaan intii kalaba ilaahay ajar iyo khayr idinka siiyo xasanaadka miisaankana ha idiin saaro isagana waa waas carafaad ilaahay ugaaska carafo ha ka dhigo mid ummadiisa iyo sida loo soo doortay u afahana ha ka dhigo hawshana oola gaabtalo waxaan aad iyo aad u salaamayaa oo u soo dhawaynayaa dhammaan beesha xasan ugaas dhammaan ummadda meesha isugu timid maskabka doonto iyo magaca doontaan ku fadhiday waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah wakiilkii nabadoon cumar jaamac cali soomaalida waxay tidhaahdaa ama laysma diro ama laysma diro haddii uu dhintay ugaaskii warka alla yaa arxamu raxiim ilaahay ha u naxariisto muddo badan baa magaciisa lahaanaya ilaahay naxariistii jannaha ka waraabi waa marka ugu horeysa marka labaad bacdal dhimashadii ugaaska ummadii lixdanka ahayd ee haaruun xasan uu dirsaday inay soo sameeyaan ugaas wixii ay noo keeneen waanu ka guddoon waxaan uga guddoonnay si kal iyo laaba boqolkiiba boqol waanuna ku raacnay waa la dooranay waana soo dhawaynaynaa waana la shaqaynaynaa ilaa iyo xilligii aanu noo yimaad haddii aan agno ugaasku marka intaasay ku dhan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wakiilka caaqilku aad buu mahadsan yahay waxaan haddana ku soo dhawaynayaa kelmadiisii odhanaya nabadoon maxamed axmed xuseen laari dhammaan ummadda meesha isugu timid rag iyo haween salaamta islaamka islaamiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamka bacdi shaacintan maanta la isugu yimi ugaas maxamuud ugaas cabdulaahi ciise dhammaan ummadda soomaaliyeed inay nala qaadato oo nala aqbasho baanu dhammaan ummadda soomaaliyeed u shaacinaynaa una sheegaynaa waana salaamayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa isna ku soo dhawaynayaa oo kelmadii caaqil aw cabdille oo telefoon ka soo hadlay oo yidhi waan xanuunsanayaa odayaashii nabadoonnada ahaa waa wada gaboobeen oo dacwa haysta iyo xanuun uu telefoon ka soo hadlay ninka la yidhaahdo maxamed cali saajin ayaa ku hadlaya codkaygii ku soo dhawow maxamed soo ogaada caaqilada dhalinyarada aqoon-yahamiinka qurbajoogta salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam ka bacdi waxaan aad u soo dhawaynayaa reerka haaruun xasan oo geeridu ku timi oo ugaaskoodii dhintay sidaa ay u soo buuxiyeen ugaas maxamuud cabdilaahi ciise nuur sida sharafka oo uga qayb qaadanayaan baan aad iyo aad u soo dhawaynaya
سلام كبعدي waxaanu leenahay ismada harti kuwa daarood waxaanu leenahay ugaas maxamuud cabdilaahi ciise nuur ugaas cabdilaahi ciise nuur waxaanu nahay haddaanu beesha haaruun xasan nahay kalsooni baanu ku qaadnay buuraa waa ka midownay waxaanu ilaahay ka baryaynaa sidii ugaas cabdilaahi noo deeqa inuu noo deeqa waxaanu dadka ogeysiinaynaa haddaanu haaruun xasan nahay xasan ugaas haddaanu nahay inaannu arrintaa ka midaysan nahay hadday culimo tahay hadday caaqiliin tahay hadday odayaal tahay hadday haweenka hooyooyinka tahay arrintaa kalsooni iyo wanaag baanu kaga midownay waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa sidii ugaas cabdilaahi ciise noo anfacay inuu daarood u anfacaa inuu harti u anfacaa inuu ummadda soomaaliyeed u anfacaa saasaanu ilaahay ka rajaynaynaa waxaan hadalka kaga tegayaa ninkii isimadii harti ama kuwa daarood ama ninkii xil hayo oo maanta soomaaliyeed miiqaamku ugaasku noo joogay iyadoo nalagu tixgelinaya in aad naloogala qayb qaata oo loo soo dhoweeya waxaan kaloo sheegaynaa haddaanu nahay reerka ugaas haaruun xasan waxaanu sheegaynaa arrintaa inaanu ka midownay ilaahayna ugu mahadnaqaynaa kii dhintayna ilaah baanu ugu mahadnaqaynaa kaanu doorannayna ilaah baanu ugu mahadnaqaynaa waxaa khadka telefoonka ku jira ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi ciise nuur oo odhan doona kelmaddii mahadnaqa ahayd loogu doortay ayaa isna kelmad odhanaya soo dhawac faar waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo dhammaan rumaasha iyo waxgaradka haaruun xasan meel walba ay joogaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahad celinayaa ergooyinka iyo guddidii kala duwanay ee ku mashquulsanayd midnimada beesha haaruun xasan waxaan sidoo kale soo dhawaynayaa go-aankii aad qaadateen anigana igu doorateen inaan ii bedelo boodkii aabahay beesha haaruun xasan uu hayay aniguna waa in la qaatay waxaan idin ballan qaadayaa inaan aniguna idinka dambeeyo wixii talaa iyo go-aan aad qaadataan aniguna aan idinku duceeyo inaan la wada qaato waxaan sidoo kale midnimada horumarka iyo nabadgelyada deegaanka walaalayaal waxaynu ku badin maayo insha allah waynu sii maan doonaa xilbarwaaqaa ummadaba baynoo haray waan islaamayaa aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين إلهي بام هذه halkan waxaan uga mahad celinayaa ugaaska aan ku dooranay ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi ciise nuur anigu waxaan ahay jiif caaqal cismaan jiif caaqal cabdi jiif caaqal cilmi qaate awoowey cilmi qaate waxaa la doortay 1412 anaa maanta ugu weyn dadka meesha jooga anaana doortay anaana magacaabay waxaan u sheegayaa dadka in aynu dooranay ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi ciise nuur aad u wanaagsan yahay markii ugaaskeennii dhintay ugaasku markuu dhintay waxaynu xilka usii magacaabanay saleebaan ciise nuur oo walaalkii ahaa kana mid ah saxeexayaasha 135 Soomaaliyeed
xildhibaanada federaalka 2016 saxeexi doona ka mid ah oo booskii ugaas cabdilaahi ciise nuur buuxiyey oo haddana inala jooga wakiil lagu sii ah ugaasku intuu imanayo ugaas cabdilaahi ciise ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi ciise nuur intuu inoo imanayo wakiil la ah aynu maalintii hore u sii idmanay inaan boosku bannaanaan meel bannaan layna ka helin sii buuxiyey jagadii saxeexa ugaas cabdilaahi ciise nuur haddeerna ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee soo saxeexi doona ergooyinka Soomaaliyeed ee dooran doona xildhibaanada dowladda Soomaaliya federaalka dowladda Soomaaliya ee federaalka ee dhexe dowladda dhexe ayaa inoo soo xiri doona shirka isaga ku soo dhaweynaya ku soo dhawaas waxaa laga yaabaa inaan xoogaa ku daaqo raalliga ahaada galay waxa weeye waqti wali wax badan baa inoo haray duurkii waxyaalaha caynkaasa anigu waxaygu waa mahadcelin weeye ilaahay baa mahadle horta dhammaan cuqaasha guddiga qabanqaabada guddoomiyaha guddiga qabanqaabada guddigii Haaruun Xasan ee muddada gaaraysa bishana ka yar dhowr iyo 20 casho u fadhiday arrimaha Haaruun Xasan aqoon-yahanada xildhibaanada ka yimid Jubbaland iyo Puntland wadada qurba joogta oo ka timid meelo kala duwan ururada haweenka oo aan yani gabdhihii haddeer maaragtay sida gabadha aanu ilmaaftiga ahayn aad iyo aad baan in wada salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mid aniga waxaa jirta mid anigu aan ballan qaaday oo aan doonayo inaanan marnaba ka tegin waxa weeye oo hadday shakhsi tahay iyo hadday 10 tahay iyo hadday 100 tahay oo Haaruun Xasan oo meesha ugu timaada marna aan ilaawi karin oo aan mar walba soo qaadanayo waxa weeye ugaas Cabdulaahi Ciise Nuur Allah u naxariisto caafimaadkiisii geeridiisii aaskiisii sida wanaagsan ee Haaruun Xasan uga qayb galay daliye dibad waxa mahad baan u celinayaa waxaan mahad u celinayaa ummadii aaskiisa ka soo qayb gashay ee ahayd isimo aqoon-yahano siyaasiin oo meelo badan ka timid ilaa iyo soonka shanaad ilaa iyo Hargeysa ilaa iyo Bari ilaa iyo Gaalkacyo iyaguna waxaan u celinayaa mahad aan la ilaawi karin waxa weeye waa midaan ilaawi karin waxayna ahayd wuxuu mutay ugaas Cabdulaahi Ciise Nuur hadduusan ahayn nin aad u qiimo badan oo intaas oo dhan ku xiran intaas kama soo ay qabasheen waxaan kaloo iyadana mahad u celinayaa dadkii aaskiisii iyaguna nagala soo qayb galay oo naga soo raacay ilaa iyo qaar baa dadkii Turkiga xitaa naga soo raacay Muqdisho naga soo raacay iyaguna waan u mahad celinaa oo cid walba ay isugu jirtay waxaa laga yaabaa maanta halkan fadhigan inay fadhiyaan dad badan oo aan Haaruun Xasan ahayn oo reer Boocama iyo dadkii darsiyada anigu dadka aad uma kala garanayo laakiin waa laga yaabaa iyaguna way mahadsan yihiin aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad qoladii xildhibaanada Puntland iyo Jubbaland ka timi way mahadsan yihiin laakiin wayba ku kala hormarino Cabdirashiid Jubbaland ka yimi Saleeman Maxamed Cilmi waba ka hormaray wuxuu yiri garow inta noo jirto warana ugaaska martiqaadka ugu horeeyay ka socay waxay la tahay Saleeman inuu kaaga isaguna waa kaaga sii dambeyn doonaa isagoo arbaba yara caawana waxa xafladii ka sameeyay xafladan aynu hadda caawa Boocama aynu u fadhino waxay ka dhacaysaa Boocama kaliya ka dhacmayso waxay ka dhacaysaa Boocama waxay ka dhacaysaa Sool waxay ka dhacaysaa beesha la yiraahdo Buuhoodle isku waqti bay dhacaysaa garoowe Gaalkacyo meelo fara badan oo Soomaalida ah iyaduna xafladda ka dhacaysa laakiin midda hadda loo fadhiyo waa Sool iyo Cayn iyo Boocame oo isku waqti la galay waxaan iyadana sooray aad iyo aad baan uga xumahay qolada miidiyaha aad baan in salaamaya raallaynaga ahaada haddii aan ka gudbay waxaad xaq u lahaydeen inaad
xubinta koowaad ama xubinta labaad aad gashaan iyadinkana aad baan ii salaamaya insha allahu haddii ilaahay idmo ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi waxaa doortay guddi haaruun xasan guddi haaruun xasana ayaa doortay weliba waxay u bixiyeen carafaad de ilaahay u qaado ilaahay ha u qaado ilaahay ha u qaado waxaan u sheegaynaa isimada dhaqanka ee daarood ama harti ama dhulbahante ugaas cabdullaahi waxaan unayaa nin maanta ama daarooda ama hartiya aan xiriir wanaagsanayn lahayn waxaanu maanta haaruun xasan ay doorteen waa inankiisii ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi oo inan dhallinyaro ah waxaanu u codsanaynaa oo warbaahinta u sheegaynaa inay nimankaas sidii odayaashii horeba sheegeen wiilkaa aanu doorannay inay gacanta ku qabtaan inay la taliyaan inuu meeshii aabbihii ay geliyaan iyo wixii talaana ay yidhaahaan iyadana waxaanu ka codsanaynaa isimada daarood kuwa harti iyo kuwa dhulbahantaba insha allahu waxaanu rajaynaynaa inay si wanaagsan ay ula shaqayn doonaan insha allahu waayo maantaba meelaha xafladdu ka dhacayso waxaa jooga isimadii sool iyo sanaag iyo cayn baa jooga labada meeloodba way joogaan marka aad baad u salaamantihiin dhammaantiin aad baad u salaamantihiin waan islaamayaa aad iyo aadna waad mahadsantihiin caleemasaarka ugaaska waxaa laga soo baahin doonaa dib ayaa laga soo baahin doonaa guddi baa u fadhiisan doonta guddidaasaa waxay sheegi doontaa xilliga caleemasaarka ugaaska sidaas ayaa shirki inoogu xidhan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu